Bismillaahirrahmaanirrahiim. Caawa waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhibaatada magaalada Dhagaxbuur ka dhex taagan dhanka dhulka ah, taas oo kaliftay in ay ummadii madaxa iskula wada jiraan waayaanna cid kala saarto. Waagii hore horta waxaan ahayn bulsho reer guuraaya xoolo dhaqato ah, meeshii daaq la isku qabsata, biyaha isku qabsata, balse waxaana kala saari jiray odayaasha beelaha iyo dhaqamadii isimada, kuwaas oo dadka si cadaalad ah u kala saari jiray, una sheegi jiray qof walbaaba ninkii qaldan. Sababtaasna maxaa kaliftay? Reer walbaa wuxuu lahaa ugaas iyo suldaan iyo oday u taliya, kaas oo waxna ka go'aan isagoo oona danaha bulshada iyo dantooda mustaqbalkaba eegaya ayuu go'aamin jiray. Reerkooda hadday qaldan yihiinna qaban jiray, qofkii qaldanna qaban jiray, garta geedayn lagu kala soocan jiray. Bulsho taqaana shuruuc iyo hab dowladeed maynaan ahayn, balse intii dambe waxay nala kulmay tacdiyo, dhibaatooyin fara badan oo la kulmay odayaashii nooca ahaa, dabar jarayna. Sidaa darteed waxaa soo baxay nin jaabka uun amarka iyo go'aankiisa iyo duqnimadiisu ninkii jaabka u buuxiya tahay oo suldaana, kaas oo haddana kaaga horeynaya meel walba isagoo sheeganaya suldaankii iyo maxaygii beesha ahna ku gebigiisuba jeebka ka rima. Kaas muxuu kala saari karaa? Bal bulshada iminka isku wada rafaadsan ma wax kala saara ayay weyday, ayay ka dhigan tahay? mayna waayin, waxay weyday doorashadii saxda ahayd ee salaadiinta dhabta ahayd ay dooran lahaayeen. Iyagaa naftooda been u sheegaya, dooranayana ku aabihii suldaan ahaa, isaguna aabahay baa suldaan ahaa, balse iimaan laawo ah. Iimaan laawo xaguu ku geynde? Waa raggii cabdi maxamuud daba nacamlayn jiro midhan baa meesha yaacaya. Meesha kale ay dhibaatadu iyo sartu ka qurunsan tahay ee bulshadan dhulka isku wada haysataa ku kala bixi la'dahay waxa weeyaan dembi baadhista iyo xeer ilaalinta. Labadaas kuwaas oo iyagu yaa is haysta uun ku nool oo sidii duqaankii xabsiga oo kala ah. Iyagu duqaanka xabsiga wuxuu ku nool yahay qofka la soo xidho, iyaguna waxay ku nool yihiin dembi baadhista iyo xeer ilaalintu qofka loo soo xidho ama dadka is haysta ee soo qabsada. Balse uma aha inay bulshadan si cadaalad ah u kala saaraan, waxay u yihiin inay ku noolaadaan inta ay xidhan yihiin. Intaas ayay nolol ka daydayaan, oo mushaarkii iyo arrimihii dowladdu u idmatay intii ay ku filaan weyday iyay bulshada dhiigooda hadda manaafacaadsadaan, kuwaas oo dhaqan iyo caadaba ka dhigtay. Dadkeenuna ku dhahayaa dembi baadhaha maad jaabka u buuxisid, maad maxayeysid, ka kale jaabka. Labada dhinacba iyagoo wax siinaya, labaduba waa dembiile. Kuwa wax siinaya isaguna waa dembiile. Ka noocaas ah iyo ka siinayaaba ilaa laga waayo, bulshadani wax cabashaa inay muujisaa waa khalad. Arrimaha dhulka haddaan ka hadlo, arrimaha dhulka lama garan la'a, waxay laayihiin garsoor saxa iyo cadaalad. Bulshada maalin walba is haysata, qaar isdakhrayaan, qaar isdhibaataynayaan. Dhibaatadii waa u boobaan ka soo baxnay, haddana ma waxaan galnaa dhibaatadii dhulka oonu isku marinaa. Taas tii hore ilaahay baa naga saaray ee dadnimo innagu aan leenahay, mana aynaan kaga bixin, mana aynaan kaga bixi karneen. Waxaynu ahayn yesman dhammaanteen, maamul ha ahaado, wax walba ha ahaado. Haddase kuwii nooca ahaa awal waxay lahaayeen waan cabsanaynay, naftayadaan la baqanaynay. Hadda bulshadan ay isku baabi'inayaan salaadiinta iyo maamulkan iyo waxan, ma wax kala saaraa la leeyahay. Bulsho xumi waxaa la yidhi maamul xun bay dhashaa, saan anigu hadda aaminsana.